السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آد باندين سلام هيا سومالي ويني وولالكين أحمد بوصوي كليبتان oo aad ka isoo jiidatay oon jeclaystay inay idin soo gudbiyo oo anigi markaan arkay saameyn ballaaran igu yeelatay ku soo dhawaada ila daawada dadka aad arkaysiin oo halka ka muuqda waa dad buura dhexdood degan dadka halka marahaya waxa la waxay isticmaalaan oo agab ah dushay ku soo qaataan halkaas ay la soo maraan jidka dhimashada bay la soo maraan gediga kale markay alaabta ka soo gataan magaalada ku taala meesha ay degan yihiin oo buuraha dhexdooda ah jidka kaliya oo loo soo maray jidka weey bal eeg si fiican u eeg dadka halka marahaya maxaad u malaynaysaa inay ku dhici karto riski intee la eg bay qaadanayaan halkaas bay marahayaan ayakii ilmahoodii waa kuwa halkaas bay nolol ka samaysteen barwaaqada ilaahay wuu bixiyaa laakiin sidoo ilaahay ku tusay ku xiranta ilaahay inuu ku garansiiyay ku xiranta annaka Soomaalida ah bal aan dib u eegna ilaahay meeshuu na dhigay dhulkeena aan eegno ilaahay wuxuu na siiyay dhul siman buuruhu ku yar yihiin baraf lahayn cimiladiisu 24 saac ay seem tahay 12 bilood ay isku mid tahay sidaas ay tahay waxba kama qabsanayno waan ka yaacaynaa waan ka qaxaynaa waan isku dilaynaa dulmi baan ku wadnaa ilaahayna wuxuu na siiyay bini aadankiisa uu abuuray meesha ugu fiicnayd buu ilaahayna dhigay ilaahay hana dareensiiyo waxa isweydiin leh maxaad u malaynaysaa dadka halka marahaya oo nolosha ka samaystay haddii aan ahaan lahayn ma waxaan ahaan lahayn dad wax qabsada oo adag oo leeyarkoodu wax iska bedelo mase waxaan ahaan lahayn dad baaba ah oo adduunka mar intay yimaadeen magacooda la xuso oo adduunka ka tirtirmadaan noqon lahayn ilaahay baa og waxaan noqon lahayn laakiin samaanta situation-kan ku sugannahay iyo xaaladayadu wax wanaagsan ma ah waa inaan wax iska bedelaan waa inaan wax iska bedelno oo nolosheenna wax iska bedesho waxaan filayaa klibtan qof kastoo daawada inay wax iska bedeli doonto oo wax uu ku cimri qaadan doono oo wax ku qaadan doono aniga saameyn ballaaran bay igu yeelatay waxaan ogaaday bini aadanku inuu ilaahay uumay qayb meel degan tahay ilaahay ku abuuray halkaas ay dadka marahayaan aniga in la hadlahaya cabsi daraadeed ba gacmaha iyo luguhu igariirahayaan dhulka intay u jiraan ilmahooda iyo ayaka meesha ay marahayaan war meeshan ku noolnahay dib u eegno war ilaahay barwaaqadu na siiyay usan dadka kala siin aan dib u eegno war dad baa baraf degan war dad baa buura dushoo degan dad baysan qorraxda u dhicin qaar baan qorraxa arag qaar baa halka aad arkaysiin oo aad daawanaysiin marahaya aan ilaahay u xamdino aan dhulkan ilaahay na siiyay oo ilaahay nagu manaystay aan wax ka qabsan aan jeclaysiga iyo qabyaaladda iyo dulmiga iska dayn aan dhulkayga ka dayno annagu aan iska dayno waad arkaysiin bini aadanka meesha uu ku kala nool yahay iyo situation-ku u nool yahay iyo nolosha say u samaysanayaan aan fadhiga ka kacno aan wax qabsano aad baan idin salaamahayaa sheer gareeya guuleysta meel kastoo aad joogtiin